السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسو دوادا ساسا ميريا أنيقو يحيى أحمد إيو مانتو لالكي ولجوغو مصطفى. الحمد لله مانتو waxaa guest noo walaalkeen weyn oo ku takhasusay wariye weyn ka oo arrimaha ka dhacayo Mareykanka oo ku magac dheer Cilmi Waare. Walaal Abu Cilmi Waare soo dhawaad. وندوهي يحيى بس الحمد لله walaalo maanta anaga waxaan hadda arabnaa program yar arabnaa inaan naga dhisid ama naga cilmi bixisid saad ula socotid hadda waxa oo bulshada ka socdo waxa waaye group 5 waa program aad u weyn oo rabaan in sidii dadka la isugu xiri lahaa dadka inta joogo iyo dadkeena oo dalkeena ku maqan iyo sidii lagu soo dhaweyn lahaa ama sidii ugu habboon oo Mareykanka ama dibadaha ama Canada meesha ahaato lagu keeno marka hadda waa dadka badan waa ziyaarinayaan sida aniga u fahansanahay adoo iga cilmi bixinayo horta group 5 laba u kala baxa right waxaa jirta qaybtii koowaad oo jirtay oo la dhahay dad sponsor gareyn kartaa laakiin ayaga dooranaya dadka aad Mareykanka keenaysid ama dadka oo refugee-ga soo dhaweynaysid qof aadan aqoonin ayay ahayd qaybta koowaad someone you don't know ayaa lagu keenaya يعني maadaama wax taas horta waxa loogu talagalay waxay ahayd dadka markii ay dalku cusub yihiin rafaadkooda u dheer moogtahay ya laakiin waxaa la rabay dad oo ayaga ama isku diin yihiin ama isku culture yihiin sida uu soo dhaweyn lahaa ama iskoolka ha geeyaan ama shaqooyin ha tusaan waxa la tusayaan dadka waxa waaye markii oo dowladda kaliya ma aha dadka taageeraysa waa shicib taageer haday helaan dadkaas waxay dareemayaan success weyn ay dareemayaan iyo heer inay gaaraan right wuxuu baahan qof u turjuwayo qof sibtaabka geenayo waxyaalahaas oo laga dhiso marka taas waagi hore waxaa kiniisooyinka iyo waxaas sameey jireen laakiin hadda waxaaba ka masii fiican haddii bulshada dadka ay dagayaan hadday dad oo xoog ay ka helaan oo community u ah oo mar walba diyaar u ah ya haddana midda kale hadda qaybta labaad oo hadda dadka ay aad iyo aad u jecel yihiin waxaa waaye qaybta aad keeni kartid dadka adiga oo waxaa isku tihiin ama ilmaadara ahaada ama dada adiga aad taqaanin oo connection aad la leedahay right marka horta programkaas ma program oo lacag ku fadhiya miyaa oo dadka oo la gadanayo miyaa iyo sida u socdaa because dadka dad waxaa jirta u malaysa dhahayo dad markaysan aqoon lahayn laga yaabo qofaa ka faa'iideysan karo dhigi karo kaale adiga keen lacagtaas intaas si anaa kaa galaya camal wax la iska galaya waa maasantahay yaxye horta programkan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay ku dhawaaqday 19 January ee sanadkii dhamaaday 2023 ujeedada loogu dhawaaqayna waxay ahayd barnaamijkan waxa ay dowladda Mareykanka uga dayatay wadanka Canada oo barnaamijkan uu horay uga jiray marka maadaama wadanka uu muddo 4 sano Donald Trump haystay 3 sanana coronavirus uu jiray backlog badan uu jiro kiisas fara badan oo iskaaray oo dadkii qaxootiga ee la keeni lahaa maadaama Trump uu qaxootigii xanibay coronavirusna haddana xanibaad kale uu geystay in ay aad u fara bateen kiisaska dadka Mareykanka inay imaadaan ahayd muddadaasi 7 sano ah isla markaana kiisaskaasi ay iskaareen marka dowladda Mareykanka culayskii ayaa ku batay si ay marka culayskaasi u kala fududeyso ayay barnaamijkan group 5 waxay uga dayatay wadanka Canada uu horay uga jiray marka wajigii koobaad waxaa lagu bilaabay in dadka Mareykanka ay isku diiwaan geliyaan oo sponsor gareeyaan ama ay kafaalo qaadaan dad aysan garanayn oo qaxooti ah laakiin qaybta dib u dejinta dowladda Mareykanka u qaabilsan horay wax uga maray oo barnaamijkooda uu gabagaba ahaa ama caafimaad sugayaal ahaa oo ama flight sugayaal ahaa in dadkaasi ay kafaalo qaadi karaan dadka Mareykanka marka waxay ahayd qof aadan aqoonin ayaa lagu keenaya hadduu rabo kugu diin ayuu ahaan karaa hadduu rabana ma ahaan karo taasi marka qaybtii koobaad ayay ahayd dad fara badan oo xitaa Soomaali ay ku jirta ayaa lagu keenay anigu xitaa qaarkood aan wareystay marka wajiga labaad ayaa wuxuu ahaa midka sida weyn loo sugayay oo ah in qofka Mareykanka jooga 5 qof ee Mareykanka joogta hal meelna isla jooga ay kafaalo qaadi karaan qof ay garanayaan waxa uu noqon karaa walaalkood adeerkood dalay abtigood dalay eedadood dhashay habreetood dhashay wixii uu rabo ayuu noqon karaa xitaa saaxiibka hadal haddii uu rabo laakiin muhiimaddu waxay tahay qofkaasi inuu kaar qaxooti leeyahay kaarkaasi qaxootigana uu lahaa wixii ka horeeyay 30kii bishii 9aad ee September ee sanadkii dhamaaday ee 2023 in uu register ahaa oo u diiwaan gashanaa hay'adda qaxootiga u qaabilsan hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ama wadanka uu joogo uu ku meel yahay in wadankaasi uu qofkaasi qaxooti u aqoonsan yahay shuruudaasi ayaa muhiim ahayd
marka wejigan labaad waxa uu bilaabmay hadda bishii December ee sanadkii dhammaaday ee 2023 waxaa la furay applicationka oo waxaa la yiri waxa aad sponsori kartaa ama aad kafaalo qaadi kartaa haddii aad tihiin 5 qof amaba ka badan oo Mareykanka jooga oo hal meel iska jooga oo citizen ah oo passport haysta ama green card ah qof aad taqaanaan ayaad kafaalo qaadi kartaa marka horta barnaamijkan sidaasi ayuu ku soo bilaabmay laakiin Soomaalidu si ka duwan ayay u fahmeen barnaamijkan ma la gadan karaa su'aal ayaa id weydiisa maya waa sharci darro waa fraud qofkii lagu qabtana xabsi ayuu ku mutaysan karaa sharcigiisana saameyn ayuu ku yeelan kartaa muhiimaddu waxay tahay in dadka Mareykanka jooga ay uga faa'iideeyaan dadkooda qaxootiyada jooga oo kaararka qaxootiga haysta kiisaskoodana muddo ay socdeen in ay kafaalo qaadi karaan oo ay soo dhaweyn karaan muddo 3 biloodana ay gacanta ku haynayaan iyagu ay u qabanayaan waxyaabihii hay'adaha dadka keena ay u qaban jireen dadka qaxootiga hay'adaha soo dhaweeya sharcigii ayay la raadin jireen shaqo ayay la raadin jireen caruur haddii ay wataan iyaga ayaa iskuulka la diiwaan gelin jiray waxay sidoo kale u samayn jireen in dadkaasi waxyaabaha muhiimka oo laga maarmaanka ay u baahan sida gurigii inay u sii helaan alaabtii ay u sii dhigaan cunto ay u sii dhigaan haddii xilli qabooba ay ku soo aadaan dharkii ay u sii diyaariyaan transportationka gaadiidka ay ka saacidaan marka la geynayo xarumaha dawladda oo loo raadinayo waxyaabihii laga maarmaanka ahayd marka waxyaabahaasi oo idin ayaa dadka 5 qof amaba ka badan ee Mareykanka jooga ee dadka kafaalo qaadaya ay 3 bilood mas'uuliyadooda ay saaran tahay in ay dadkaasi ay u qabtaan 3 bilood kadibna haddii dadkaasi ay noqdaan dad cagahooda isku taagay oo awooda in nolosha Mareykanka ay la sii qabsadaan dawladdu faraha ayay ka qaadaysaa haddii weli in garabka la qabto ay u baahan yihiin dawladda ayaa garabka qabanaysa inta dadkaasi qaxootiga la keenay cagahooda isaga taagayaan ما شاء الله ما شاء الله هذه ما سنتهي مدة كلام أنا أقول ديو مركب هذا البروجرام كان وحفر مي بشي الله بيتمنى سنة كل صوت عفي ما وقت وحرمة يوم يجرت مايا وقت وحرمة يوم ملهن منا كقرنا ويب سايت كودا www.welcomecobis.org مهمة وحياتها هي شنطة قف هالكن جوجا أمريكان كا dhowr tallaabo ayaa ka horeysa ka hor intaysan application ka xareynin dhowrka tallaabo waxay tahay marka hore horta training online ah inay qaataan website-ka gudihiisa ay ka qaataan oo ay shahaado helaan shahaadadaasi 5 qofna way qaadan karaan qof ka midana wuu qaadan karaa siiba qofka leadka groupka coordinatorka oo isku xiraya ayaa loo baahan yahay shahaadadaasi inuu qaato shahaadadaasi qofku marka uu qaato kadib waxa uu marayaa haddana background check ay 5 qof marayaan because qof dambiila ah looma baahno in dad wadanka hadda imaanayo oo ku cusub in uu dadkaasi uu ka mid noqdo dadka soo dhaweynaya background checkaas marka ay maraan kadib haddana waxa ay sameynayaan fundraising in ay lacag ururiyaan calaa qof kasta oo aad keenayso waxaad ugu talagelaysaa $2,425 lacagtaasi ma ahan lacag ay dawladdu qaadanayso lacagtaasi account aad soo furteen oo 5 qof ay soo fureen amaba mid ka mid ah uu soo furay ayaa lagu shubaya lacagtaasi waxa loogu talagalay dadkan aad keenayso inaad guri ugu kirayso alaab ugu sii dhigto xilli winter haddii ay ku sii aadaan aad dar ugu soo iibiso cuntana ugu iibiso lacagtan $1 oo ka mid ah dawladdu ma qaadanayso accountigaasi ayay ku jiraysaa marka aad fundraising ka samayso oo aad lacagtaasi ku shubto accountiga welcome plan wax la yiraahdo ayaad sameynaysaa dadkan aan soo dhaweynayo waxaan dejin doonaa guri hebel oo xaafad hebel ku yaala neighborhoodkaas waa safe xarumaha dawladda ee sharciga aan uga qaadi doono inta ay u jiraan iskuulka haddii caruur ay wataan aan ka diiwaan gelin doono halka ay u jiraan haddii ay muslimiin yihiin goobaha cibaadada masaajidda halkaas ay u jiraan communitygooda halka inta ay u jira marka waa inaad welcome plan samaysaa sidee aad rabtaa inaad u soo dhaweyso haddii ay caruur wataan gaadiid intaas oo idil ayaan garoonka uga doonaya aan ku soo dhaweynayaa marka balaankaasi inaad qorto waayo applicationkaada aad raaciso welcome balaankaasi marka aad samayso kadib applicationku waa waxa ugu dambeeya oo aad qabanayso isla markaana aad gelinayso informationka dadka aad keenayso kaarka qaxootiga ay haystaan maxay wadankoodii uga soo carareen maxay ugu laaban la'yihiin haddii ay ku laabtaan maxaa ku dhacaya waxyaabahaas oo idil applicationka ayaad ku qorayso applicationkaada marka aad dirto teamka welcome cobis review ayay ku samaynayaan dib ayay u eegayaan haddii uu ku wada saxan yahay approve ayaa lagu siinayaa markaasi kadib waxaa loo gudbinayaa qaybta Mareykanka u qaabilsan dib u dejinta ayaga ayaa la xiriiraya dadkii qaxootiga ahaa oo aad u xareysay barnaamijkan group 5
markaasi kadib ayaa processkii la marsiinaya interviewga in laga qaado ma ahan marka qof kastoo aad u dacwoto in la keenayo dadkaasi interviewga waaxda dib u dejinta maraykanka ayay ku dhici karaan because interviewgii laga qaaday markii uu qaxootiga imaanayay ayaa dib loogu celinaya marka hadalla iskhilaafsan haddii uu sheego micnaheedu waxay tahay qofkaasi inuu dhacayo oo aysan suuragal ahayn marka tillaabooyinkii loo baahnaa interviewgii in background check lagu sameeyo waxyaabahaasi oo idil caafimaadku qofku ku dhici kara waxyaabahaasi oo idil qaybta dib u dejinta maraykanka u qaabilsan ayaa la xiriiraysa dadka adigu aad u xaraysay markaasi kadib ayaa qofkaasi processkiisa halkaasi ka bilaabanaya marka applicationkaada either waxa uu noqon karaa in approve la yiraahdo oo wadadii saxnaa aad martay in la yiraahdo in waxba ka qaldan oo dib lagugu soo celiyo wixii ka qaldana aad saxdo iyo in deny la yiraahdo oo la diido saddexdaasba applicationkaada marka aad dirto waa uu noqon karaa teeda kale dadka qaxootiyada jooga haddii horay maraykanka dib u dejin inta ay heleen ay dhaceen oo interview hadalla iskhilaafsan ay dadkaasi sheegeen oo horay ay u dhaceen oo qaybta dib u dejinta ee maraykanka ay ku dhaceen qofkaasi group 5 uma xarayn kartid because horay ayuu maraykanka uu deny loo dhahay oo loo diiday waa hagaag marka haddii aan taas wax yar kusii daro hadda shuruudoo dhan oo qofka u baahan yahay qofkii rabo inuu bilaabo ama interest u ah hadda maadaama aad noo sheegtay aad umaasan tahay midda rabo kale aan weydiiyey inaad naga cilmi bixisid aan rabo waxaa waaye kasoo qabo horta dadkeena anaga waa isku wada xiranaya maadaama haddii aan rabo aan 5 qof rabo aan isku keeno 5 qof oo igu soo sokeeyo waa walaalayaashii ama waa asxaabteeda ama waa saaxiibteeda waa yar tahay dadkeena inay sida ajnabiga si fiican usii dhex galaan ama dadka ay la shaqeeyaan ay keensadaan mogtahay maadaama haddana baahida ay iska badan tahay haddii oo kasoo qabo anigoo kale aan support gareeyo ama aan u noqdo sponsor saaxiibkay oo raba asagana inuu dadkiisa u keeno oo aan sponsor aan ahay anigana xaq ma u leeyahay inaan koo kale aan bilaabo oo aan ka noqdo main person ka camal shuruudaha 5 qof oo maraykanka jooga waxaa ka mid ah horta in qofka uu citizen yahay ama green card uu leeyahay da'diisu inay tahay 18 amaba uu ka weyn yahay dadku 5 qof isku family way noqon karaan oo 5 qof oo isdhalay ama isla dhashay guri isla degan xitaa isku adareysa waa ay noqon karaan muhiimaddu waxay tahay dadkaasi inay yihiin dad hal meel isla jooga within 20 miles oo driving waa inay isku jiraan 20 minutes oo driving 5 qof waa inay isku jiraan ma ahan qof gobol kale jooga ama gobolka aan joogo magaalo oo 1 saac jirta ama 2 saac jirta qof jooga ayaan isku group noqonaynaa ma ahan waa inaad hal meel wada joogtaan hal magaalo oo aad like 20 minute aad isku jirtaan teeda kale waan ognahay Soomaalidu waxay rabaan anigu 5 qof waan isku tagaynaa ana waxaan rabaa inaad dad keensado qof hebelna wuxuu rabaa inuu dad keensado qof hebelna wuxuu rabaa inuu dad keensado ma ahan sidaas uma shaqeyso dadka aad keenaysaan 5 qof waxay noqon karaan one individual amaba hal qof amaba dad isku family ah oo hal kaar oo qaxooti ah ku wada jira waxaan ognahay kaararka qaxootigu waxay u kala baxaan dadku inay isku family yihiin oo hal kaar ay ku wada jiraan amaba inay kala gooni yihiin laakiin hal mid ayaa jirta haddii dadku ay yihiin dad hal guri isla degan oo hal meel isla degan isla markaana kala kaar ah marka ay halkan yimaadaanna ogol inay hal guri isla degaan oo dad isla degi kara oo isku family ah oo iska agdhow yihiin waa loo xarayn karaa laakiin waxaa la diidayaa anigana qof ayaa Uganda ii jooga hebelna qof ayaa Kenya u jooga hebel kalena qof ayaa Ethiopia u jeega marka waan isku darsanaynaa oo dadkeena sidaas aan ku keenaynaa ma ahan shuruuddu waxay tahay dadka 5 qof waa inay hal wadan isla joogaan hal meel wada joogaan muhiimaddu waa taa marka sida ay Soomaalidu u fahantay ma ahan oo 5 qof ayaan noqonaynaa qof walibana dadkiisa ayuu kansanayaa isku group ayaan noqonaynaa teeda kale marka aad 5 qof tihiin 2 qof oo ka mid ah 5taasi qof waa loo ogol yahay inay group kale ku biiraan oo qayb ka noqdaan laakiin qofka coordinator-ka ah ma ku biiri karo group kale oo groupkaasi isku xiray laakiin 2 ka mid ah xubnaha groupkaasi 5 qof ah group kale waa ay ku biiri karaan oo xubna waa ay ka noqon karaan laakiin 3 group ku jirta haddii ay doonayaan inay group kale ku biiraan markaasi calaamad su'aal ayaa imaanaysa because markaasi waxa meesha ka baxaya dadkan haddii 3 qof oo ka mid ah groupkan ku jira ay group kala galaan waxaa dayacmaya dadkii la keeni lahaa shaqadii loo qaban lahaa ayaa meeshii ka baxaysa because dadkan 5 qof waxa loogu talagalay maadaama dadku ay shaqo leeyihiin in ay isbedbedelaan maanta hadduu cali qofkan qaado uu geeyo xaruntii social security maalinta bariya Axmed ama Yaxye ayaa looga baahan yahay inuu geeyo isbitaalkii oo dadkan caafimaadka iyo jaab-jaabka ay lahaayeen uu soo marsiiyo marka
waxaa la diidayaa marka dayacaad inay dadkii ku timaado sida ayaa loo diidayaa laba qof ka badan in aysan group kale aysan ku beeri karin waa hagaag marka waxaa kaloo rabay inaad iga sii dhistid haddii aan isku guri degannahay aanan isku group ahayn laakiin isku address aan nahay ma loola ogol yahay aan keensan karo anigana 5 aan keensan karo roommate-keygana asagana 5 uu keensan karo ma loola ogol yahay inaan sponsor garayno laba different group aan nahay laakiin addresskeena hal uu soo baxayo waa ladii ogol yahay 5tiina qof oo halka guri isla degan mid waliba group ayuu ku beeri karaa mid waliba groupkii uu raba ayuu geli karaa haddii aad rabtaana 5tiina is group waad noqon kartaan haddii aad rabtaana groupyo kala duwan ayaad geli kartaan coordinator waa noqon karnaa Soomaaliya groupyada kale yani anigu 5 meel degan qof walba keeskiisu haysanaya qof waliba leader xitaa groupkiisa uu ka noqon karaa haddii uu rabo ما شاء الله جزاك الله خير مدة كلام وحارب الأوجاد وهذا وحا ضدك حوجا لقرب اللي علم بحيو account كلا فراي account كلا فراي أو موجينيت أود وكنت وين موجينات أود على ضدك الأقصود ويكرتي ساشيكتي وين العكس إنك سويت الدور ده قادرين وعتوس يسا ضدك هذه أي جام قلان أما واحد اللي بعتوس كتير إلى دعوي كرتي أو ناسي موجسيد واي account كاس هل قفا فرايو ma laba qof aa furayso mise waxa loogu talagalay corner kaliya inuu taas hagaajiyo oo asaga dhinacaas uu sameeyo te loo fura accountkaas accountiga horta 5 qof qofka group leaderka oo kaliya ayaa soo furi kara marka looma baahno personal accountigaada adiga aad isticmaalaysay inaad isticmaasho looma baahno accountigan waa inuu noqdaa accounting new ah oo horay wax lacag aysan ugu jirin horeyna wax transaction oo kale bangi aad isticmaali jirtay accountigan waa inuusan noqon sababta sidaas loo leeyahay waxa ay tahay bangigan waxa la rabaa in lacagtaasi ay noqoto in lacag dadkaasi oo kaliya loogu talagalay marka accountiga marka aad soo furto groupka waa inaad magac u bixisaa magac unique 5 qof groupkooda waa inay u bixiyaan accountiga marka aad soo furtaan accountigu waxa uu leeyahay qayb nickname ama naanaysa qaybtaasi ayaad groupka magaciisa aad ku qoraysaa si ay statementiga uga muuqato lacagta marka applicationka aad xareynayso kaba soo qaad hal qof ay 5 qof u dacwoonayaan halka qof waxaa looga baahan yahay $2,425 applicationka marka aad dirayso waa inaad raacisaa 60% lacagtaasi inay accountiga ku jirto 60% marka $1,455 waa inay accountiga ku jirtaa oo aad cadeynteeda aad dirtaa marka applicationka aad xareynayso haddii 2 qof aad keenayso waa in 60% lacagtaasi meesha ku jirta haddii 3 qof aad keenayso waa inay sidaasi oo kale ay noqotaa marka waxaa la diidayaa in personal accountiyadii 5 qof ay isticmaali jireen mid ka mid ah la yiraahdo accountigan lacagtaasi intaasi ku jirta ayaan hayna mana loo baahna lacagtu in ay ka badato inta lagu sheegay oo 60% haddii aad tiraahdo lacag waa ii buuxdaa oo $100,000 ayaa accountigaasi iigu jirta wax laga aqbalaya ma ahan teeda kale 5 qof ayaga nafsad ahaantooda in lacagta iska ururiyaan looma baahno fundraising waxa loo yiri waxay tahay in GoFundMe page aad samayso in aad casho inta abaabusho aad familiga iyo asxaabta aad tiraahdo bal fundraising ayaan samaynayaa igala soo qayb gala oo mid 50 ku siiyo mid 20 ku siiyo mid 100 ku siiyo mid 30 ku siiyo waa in xataa mararka qaar waxaa lagu dhihi karaa qaabkee lacagtan u soo ururisay marka waa inaad caddayn kartaa lacagtan qaabkee aad u soo ururisay haddii aad tiraahdo annaga 5 qof ayaa iska ururinay ma wanaagsana website-kan waa ay ku qoran tahay waxa la leeyahay ma loo baahno require ma ahan 5 qof gudahooda inay lacagtan iska ururiyaan waxa fundraising loo yiri waxay tahay in lacagtan qaab fundraising aad ku soo ururiso because dawladdu waxa ay ku fikiraysaa waxa ay tahay hal qof ama 2 qof ama 3 qof ma awoodi karaan in ay dad intaasi leeg lacag jeebkooda ay ku keenaan because marka aan caqliga saliimka hadda aan ka hadalno dadka Mareykanka ah qaabkaasi ayay u sameynayaan amaba non profit organization oo kale haddii uu jiro isaga nafsadahantiisu dad waa sponsori kara masaajidoo kale goobaha diiniga dad waa sponsori karaan because waa non profit organizations marka waa in uu qaabkaasi uu noqdaa qaabka bangiga aad u furayso amaba sidoo kale aad doonayso in aad lacagtaasi aad u ururiso haddii taasaan kusii dheeraado adoo raalli qof walbo aa sponsor garaynaysid malcag khaasa gooniga lagaa rabo miyaa jirto oo barshaqsin halaa qof kastoo aad keenaysid waxaad ugu talagelaysaa $2,425 haddii 5 qof ay yihiin qof kasta waa inaad $2,425 aad ugu talagashaa
ما شاء الله عندنا وحنا هذا فند ريسنج كنا والله حساب تمي كرا لكن ما هذا إلا هذا سيستم ما لها قفل بكل حساب تمام لكن والله قال إنه نسيب أي تحي yes والله ويدين كرا yes random والله ويدين كرا يا ما شاء الله جزاك الله هدي أن كسي جدبو أن قيبت الواد جدبو مركز مركي هكسو قبو هذا شروط داس لنا هذا نصر هذا قفكم مركو صومرو أو لقى أقبله وابلكيشن لقى أقبله كبعدي round 2 gaas muxuu noqonayaa markaas sidee bay u dhacaysaa ka bacdi markii adiga dhinacayga markaan sameeyo oo aan la awoodi tuso fundraising tuso aan certificate ka soo qaato oo dadkii oo dhan wixii isku xiriiriyo ee ayagana iga aqbalaan ka bacdi maxaa sidee buu dhacaa programka waa aniga hadda kuu sheegay su-aashantii ka horeysa oo malaynaa inay ahayd marka applicationkaada la approve gareeyo adiga email ayaad helaysaa applicationkaada in la approve gareeyo hadda xitaa waxaa jira dad Soomaaliya applicationkooda la approve gareeyay next step-ka waxay tahay waxa kiiskaada loo gudbinayaa dadkan aad u dacwootay magacyadooda ayaa waxa loo gudbinayaa waaxda dib u dejinta u qaabilsan Mareykanka dadkaadu meesha ay joogaan dadka qaxootiga aad u dacwootay halka ay joogaan ayaa markaasi wareysiga looga qaadaya haddii ay xero qaxooti ay joogaan qaxootigu marka sidaan ognahay waxa uu kala baxaa urban refugee oo magaalooyinka ku nool sida Kampala Nairobi iyo camp refugee dad qaxootiyada ku nool marka haddii kiiskaadu urban refugee uu ahaa dadkaadu processka ama Kampala ama Nairobi ayay ku mari doonaan haddii uu camp refugee ahaana dadkaadu xerada qaxootiga ay joogaan ayay interviewga ku mari doonaan marka kiiskaada marka la approve gareeyo hay'adan waxaa la yiraahdaa United Refugee Admission Program la yiraahdaa waxa loo soo gaabiyaa USRAP ayada ayaa marka dadka interviewga ka qaadaysa background check marsiinaysa haddii marka qofku أو لبدا interview ayaa jirta pre-screening interview iyo approval interview ayaa jira pre-screeningka waxa waaye su'aalaha ugu horeeya lagu weydiinayo wadankii maxaad uga soo carartay maxaad ugu laabalaadahay haddii aad ku laabato maxaa kugu dhacay goorma ayaa halkan timid inta aad joogtay wax dhibaato ah miyaa kugu dhacay haddii wadankii markii aad ka soo cararaysay dhibaatada aad la kulanto uga soo carartay maxay ahayd miyaa lagu dhaawacay miyaa lagu xiray miyaa lagu handaday familkaada miyaa dhibaato loo geystay waxyaabahaasi oo idin ayaa marka interviewgaasi waa wax laga qoray intooda badan markii aad kaarka qaxootiga aad qaadanaysay marka kiiskaadii haddii aadan maskaxda ku haynin oo wixii aad sheegtay markii kaarka qaxootiga la registraynayay micnaheedu waxay tahay waad dhici kartaa pre-screening interviewgana su'aalo aan lagu weydiinin markii kaarka qaxootiga aad qaadanaysay ayaa lagu weydiin karaa marka haddii su'aalahaasi lagu weydiiyey aysan ahayn waxa aad sheegayso wax beena oo isku soo aadisa haddii ay yihiin beentu inta badan meel dheer ma gaarto laakiin waxa aad sheegayso wax run ah haddii ay yihiin micnaheedu waxay tahay waxaas waadba xasuusataa in ay run yihiin marka pre-screening interviewgaasi waxaa ku xiga interviewga kale oo lagugu ogolaanayo in Mareykanka uu dib u dejin ku siiyo marka haddii interviewgaadii hore iyo kii ogolaashaha lagugu siin lahaa ay is yeelan waayaan micnaheedu waxay tahay marka waa dhacday oo Mareykanka dib u dejin ugama qalantid markaasi kadib ayaa background check maraysaa haddii labaas interview aad ka soo gudubto background check ayaad maraysaa kadibna caafimaadkii kadibna flightki ayaa ku xiga marka waxaa laga yaabaa dadku waxay u sugi jiraan dad kaarkooda qaxootiga uu cusub yahay oo qaatay sidaan kuu sheegay September 30 sanadkii dhamaaday ee 2023 iyo dad horey qaxootiyada sanado u joogay laakiin Mareykanka aan dib u dejin ka helin iyo dad Mareykanka horey dib u dejin uga helay oo processkoodu oo stack ahaa ama Trump oo stack ka dhigay ama coronavirus oo stack ka dhigay marka dadka ugu fudud waxa ay yihiin oo laga yaabo within 3 to 6 months in lagu keeno dadka horey Mareykanka dib u dejinta uga helay oo kiiskooda uu dhamaaday ama caafimaadkii uu ka dhacay ama flight suga ah dadkaasi waa dadka ugu fudud oo maadaama dadkaasi Mareykanku horey wax kasta uu u mariyay micnaheedu waxay tahay in caafimaadkii lagu celiyo kadibna ticketkoodii loo jaro oo la soo qaado ticketkana sidaan ognahay dadka qaxootiyada lagu keeno IOM ayaa ka bixisa oo looma baahno dadka Mareykanka jooga inay ticketka dadkaasi ka bixiyaan qofku waraaqayu soo saxiixaya markuu Mareykanka yimaado uu shaqaysto inuu lacagtaasi deynta ah dib isaga celin doono marka dadkaasi ayay waxay yihiin dadka ugu fudud oo within 3 to 6 months lagu keeni karo waa dadka horey Mareykanka dib u dejin uga helay oo interviewga iyo waxaan aan ku sheegay background check horey u soo maray ama caafimaadkooda uu ka dhacsanaa ama flight suga ah marka dadkan kale oo cusub waaye dadka interviewdaasi la marsiinayo oo macquul ay tahay inay dhici karaan ayna baasi karaan because dadkan waa cusub yihiin horey waxda Mareykanka dib u dejinta u qaabilsan wax process ama aysan uga marin hadda ayay cusub yihiin aqbaltu waayahay
midda kale aan rabay anana ku sii dheeraan haddii aan ku weydiiyo waxaa dhaa interviewgan horta ay sheegaysa aad iyo aad u muhiim u yahay la-aantiis wax dhaqaaqaya ma jirto innaga dadka maraykanka joogo sida nogula soo xiriiro waxaa waa xagga emailka wicitaanka waa iska yar yahay programka markaa buuxisid step walba aad maraysid ama tilaabo walba aad maraysid email ay kuu soo dirayaan dadka xagga joogo sideeba ula xiriirayaan because waxaa waaye waxaa ka cabsanayn waxaa waaye adigoo waqtigan wax walba geliyey soo maray hadhow markii dadka xagga la joogo haddii oo magacooda la soo waco ay ka soo jawaa ama interviewgan ay imaan waayaan ama response u samayn waayaan taasna ayadan dhibkeeda keenaysaa marka xagga qaabka xagga sidee dadka ula xiriiraan dadka xagga joogo waxay ula xiriirayaan qofkan markaad applicationka xaraynayso kaarkiisii qaxootiga ayaad raacinaysaa marka waxaa la hayaa ID numberkiisii magaciisii iyo sawirkiisiiba way hayaan dadkana waa dad diiwaan gashan halka ay ka diiwaan gashan yihiin qofkaasi isla markiiba informationkoodii way haystaan haddii qofka telefonkiisii uu lahaa marka la geliyo qofkan ID numberkiisa xiriirkiisii horey ayuu uga soo boodaya markaasi waa la wacaya wax la leeyahay maalin hebel interview u imaaw ama maalin hebel caafimaad u imaaw ama maalin hebel waad baxaysaa ticketkaadii kale qaado marka already markaad application ka dirayso qofka aad u dacweynayso ama qaxooti ha joogo ama magaalo ha joogo informationkiisii aad halkaasi gelinaysaa already marka informationkaasi dowladda maraykanku way haysataa oo waxay tahay horey ayuu qofkan qaxootiga uga diiwaan gashanaa marka waa ay fududahay inay helaan maadaama waxa aad provide garaynayso applicationka markaad xaraynayso informationkii qofkaasi ay tahay si fudud ayuu ku heli karaa wax su'aala abuu cilmi waari aad iyo aad ay u mahadsan tahay sida mugale aad barnaamijkan noogu soo qayb gashay waxaan ku weydiinayaa hadduu ilaahay yiraahdo laba su'aal oo muhiim u ah oo bulshada ku dhaqan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota su'aasha koowaad waxaa waaye qofka ama dadka loo dacwoonayo ama xero qaxootiga ku jiraan ama banaanka ha joogaano gaar ahaan dadka qaxootiga oo xerada qaxootiga ku jiro ayaga maxaa loogu baahan yahay qofkan u dacwoonayo su'aal fiican dadkaas maxaa loogu baahan yahay ayaga naftirkooda dadkaasi waxaa looga baahan yahay oo keliya waxay tahay in ay dadkaasi register ay qaxootiga waddanka ay joogaan in uu ahaa qof qaxooti ahaan uga diiwaan gashan amaba hay-adda UNHCR qaxooti ahaan uga diiwaan gashan wixii ka horreeyey 30kii bishii 9aad ee sanadkii dhammaaday 2023 muhiim ma ahan inaad kaarkii gacanta ku haysato muhiimaddu waxay tahay inaad register ahayd oo qof qaxooti aad xilligaasi ka hor aad isku diiwaan gelisay iyo in aad haysato wax form of amaba waraaq ha ahaato ama ID ha ahaado caddaynaya registrationkaasi inaad tahay qof la diiwaan geliyey waxaad la wadaagaysaa marka wax kasta oo aad haysato oo qaxooti ahaan lagugu diiwaan geliyey dadkan ku xaraynaya inta kaliya oo lagaga baahan yahay waa inta su'aalo yar oo waxaa jira marka applicationka dadka halkan jooga ay xaraynayaan la weydiinayo oo ah qofkan muxuu uga soo cararay wadankii uu ka yimid goorma ayuu ka soo tegay maxaa dhibaato ah uu kala soo kulmay muxuu haddii uu ku laabto sababta maxaa uusan ugu laaban karin maxay tahay maxaase ku dhacaya haddii uu wadankii ku laabto marka su'aalahaasi waa in ay la wadaagaan dadka wax u xaraynaya oo maraykanka jooga waa inay noqdaan wixii ay hore u sheegteen markii qaxootiga loo diiwaan gelinayay wixii ay sheegteen iyo waxa dadkan ay qorayaan wax is yeelanaya waa inay noqdaan marka waxa kaliya oo looga baahan yahay dadka qaxootiyada jooga waa inta in ay register ahaayeen oo qof qaxootiya waddanka ay joogaan ama UNHCR in ay wax caddayn ah in ay qaxooti ahaayeen oo form ah waraaqa ahaato amaba kaar ha ahaato inay soo diraan oo applicationka lagu xareeyo iyo in qofkaasi uu caddeeyo sababta uu uga soo cararay waddankiisii iyo sababta uusan ugu laaban karin waqtigii uu yimid waxyaaba haddii uu la soo kulmay dhibaato ah dowladda waddanka uu ka yimid wax ma ka qaban waysay dhibaatooyinkaasi uu la kulmay waxyaabaha sidoo kale la weydiinayo mise la wadaagayba dowladda dhibaatada waxyaabahaasi oo idil ayaa ka mid ah waxyaabaha looga baahan yahay dadka qaxootiyada jooga oo doonaya in la kafaalo qaado okay aad iyo aad ayaa umahadsan tahay su-aasha labaad oo ummadda oo isdhex weydiinaysa waxaa waaye maadaama in badan aad ka hadashay oo media aad uga hadashay haddana soomaalideena waxaa waaye still waxay u baahan yihiin explain wax la dhaho maadaama janis aa inoo siisay maanta inaad nagala soo qayb gasho barnaamijkan gaarka ah aan ugu talagalnay walaalaheena soomaaliyeed oo halkan nala joogo inay
update ka siiso waxyaalaha qaxootiyaasha loogu baahan yahay su'aasha labaad waxa waaye dad aanan last namekeeda isku mid ahayn masalan oo kale cali faarax jaamac xuseen sacdiyo saciid ama faadumo cabdi oo laakiin hal address wada degan laakiin oo kala last name ah u dacwoon karaan group 5 kan yani qof oo xere qaxooti jooga ama banaanka kala jooga shuruudaha waxaa ka mid ah horta qofka 5 qof oo halkan jooga xitaa dad ajnabi aad ku darsan kartaa dadka kula shaqeeya dadka saaxiibada ah dadka dariskaada ah qofkii aan wax magaca kuma xirno haddii aad rabtaan ajnabi xitaa isku diin ha ahaanina marka muhiimaddu waxay tahay inaad 5 qof oo hal meel oo isku dhow degan aad heli karto dadka aad u dacwoonaysa xitaa qasab ma ahan inay wada dhasheen waa dad ilma adeer ah ayay noqon karaan ilma abti ah ilma eeda ah ma la fiirinayo adiga qofkan maxaa isku tihiin laguma weydiinayo just qofkan ma taqaana this is someone I know why muhiimaddu waxay tahay waxaad wejiga labaad wuxuu tahay you can sponsor someone you know marka xitaa saaxiibka qof uu dhalay qof aad saaxiib Soomaaliya ku ahaan jirteen qof uu dhalay ayay noqon kartaa marka dadka halkan joogana wax requirement oo dhinaca magaca kuma xirno dadka aad u dacwoonaysana wax requirement kuma xirno oo dhinaca magaca ama wada dhalashada okay dadka group 5 ku jiro hadaytana waa ka hadashay laakiin dadka Soomaaliyeed oo si iftiininayna maadaama media aan isticmaalayno badanaa su'aalaha ay weydiinayaan maadaama media ka shaqeyna waxa waaye 5 qofood yaxayna wuu ku weydiiyey laakiin explain fara badan aan sameynayna insha Allah raalin naga ahaw account-ka la furaayo oo bangiga ah waxay noo sheegtay inuu bangi kale oo gooni ah uu yahay oo Wells Fargo American bangi whatever laakiin bangi gaar ah bangigaas 5 qofood ma wada furayaan mise coordinator-ka bisa furi kara bangiga ما horta Wells Fargo wuu noqon karaa Bank of America wuu noqon karaa aniga hadda qof baa ila soo xiriiray dhahayo waxaan ka soo furtay Wells Fargo laakiin sababta xoga aan u iri waxay tahay bangiyada waaweyn oo magaca ku leh Mareykanka waxa laga yaabaa in arrintan ay kugu adkeeyaan oo yiraahdaan waa inaad ururka non profit organization aad u soo diiwaan gelisaa state waa inaad waraaq kala timaadaa city waa inaad waraaq kala timaadaa laakiin xoga bangiyo waxa jira yar oo iyagu aan shuruudo badan inta badan kugu xiraynin laakiin muhiimaddu waxay tahay hadda Wells Fargo kala dad u furay jirto oo ila soo xiriiray sida aan ku sheegay laakiin muhiimaddu waxay tahay bangiga inaad u sharaxi karto horta waxa aad doonayso qofku maxaa bangiga hal qofna wuu furi karaa 3 qofna way isku soo qori karaan laakiin waxaaba wanaagsan qofka coordinator-ka inuu soo furo laakiin bangigaas waa inuu noqdaa account cusub oo hadda la furayo waa inuu san noqon account horey loo isticmaali jiray haddii xitaa account horey loo isticmaali jiray uu yahay waa inuu noqdaa account aan wax transaction badan aysan ka dhicin oo lacaga fara badan aysan marin oo horey aadan ugala bixin muhiimaddu waxay tahay bangigaas inuu yahay markaad magacaada ku soo furto sida aan ku sheegay qaybta nickname-ka ayaad groupka magaciisa ku qoraysaa waxaana qasab ah oo muhiim ah groupka inaad magac u bixisaa because intaasoo qof ayaa application diraysa groupkaada waxaa loo baahan yahay wax lagu aqoonsan karo magaca welcome corpsna waa inuusan raacsanaanin groupka magacaad u bixinayso welcome corps waa inuusan raacsanaanin magaca unique hadaa rabto magaaladii aad ka timid magaceeda u bixi because hadhowdii marka haddii wax ka qaldamaan lagula soo xiriirayo waxa lagu leeyahay soo ma ahayn group hebel ma ahayn soo ma tahid qofkii application-kaas soo group marka groupka magaciisu waa muhiim markasta waa inaad groupka magac ula baxdaa marka qodada waxaa laga yaabaa inay magacoodii ula baxaan aniga Faarax Jaamac ayaa la yiraahdaa marka magacaada ma ahan magacaada inaad ka dhaafto oo aad u bixisaa magac unique ah ayaa ku qoran website-ka magac unique wuxuu noqon karaa marka magac aysan qof kale kula wadan xataa rabto naanaystaada ka dhig naanays unique haddii aad leedahay haddii aad rabto ka dhig laakiin groupku waa magac lagu aqoonsan karo oo unique ah inuu yeeshaa si looga kala garto application-ka faraha badan oo dadku ay dirsanayaan Soomaali oo kaliya ma ahan dadka application-ka dirsanaya Ethiopian ayaa ku jira Kenyaati ayaa ku jira everybody ayaa ku jira oo dad qaxooti ah ay ka joogaan meel kasta wadamadan Afrikaanka oo dhan marka waa inuu magaca groupkaada uu sidaas noqdaa wagaag su'aasha muhiimka ah oo aan rabo inaan ku weydiiyo cilmi waxa waaye groupkan markii la furayo
waxaa mediaha aad ka aragnay ama aad ka sheegtay in dadka intersettlementiga maray oo u dhiman un bes in falaay loo qaado ama IRC Africa maray ama immigration systemka maray oo caafimaadka maray oo just u dhiman in falaay loo qaado ayaa loo ogol yahay in la soo qaado taswijiga koobaad ayay ahayd face to face ka ayay ha dadka waxay leeyihiin ma still ma saas miya oo dadkaas ma isboorsan gareyn kartaa mise everybody waa responsible waan ka hadlay arrintaas hadda waxay tahay wejiga labaad way isugu jiraan dadkii hore oo caafimaadka ama falayd suga ahaa waa dadka ugu fudud oo wejiga labaad ka faa'iidaysan kara sidii hadda aan kuu sheegay maadaama dadkaasi ay horey dowladda waaxda Mareykanka dib u dejinta u qaabilsan ay horey u qaadatay oo Mareykanka ay dib u dejin ka heleen wax kastana ay hore u mareen oo laga yaabo caafimaad iyo falaydkii inuu dhimaya dadkaasi waa dadka ugu fudud oo haddii 5 qof ama ka badan oo Mareykanka joogay u dacwoodaan 3 ilaa 6 bilood lagu soo qaadin karo laakiin dadka cusub ayaaba loogu talagalay wejigan labaad inay ka faa'iidaystaan oo qaxooti u diiwaan gashanaa wixii ka horreeyay September 3 sanadkii dhamaaday ee 2023 marka waa ay kala fursad fiican yihiin mooyaane qof kasta oo kaar qaxooti haysta oo xilligaasi ka hor qaxooti ahaa ayaa ka faa'iidaysan kara wejiga labaad teeda kale waxaa laga yaabaa maadaama hadda waddanku oo doorashadii ay soo dhowdahay oo ku dhawaad 8-9 bilood ay ka harsan tahay waan ognahay siyaasadda waddanku halka ay marayso inay meel xasaasiya marayso waxaa laga cabsi qabaa ninkii odag ahaa ee Trump inuu soo laabto dad fara badan waxay isweydiinayaan Trump haddii soo laabto barnaamijkan ma sii socon doonaa aniga waxay u badan tahay 100% in barnaamijkan uu istaajin doono barnaamijyada istaajin doono ay ka mid yihiin haddii uu Biden soo laabto waa laga yaabaa inuu sii socdo 4 sano oo Biden uu xilkaas hayno xitaa eligibility-ga ama requirement-ga wax laga bedelo oo laga yaabo hadda 2024 kan dadkii kaar qaxooti isku diiwaan galiyay xitaa inay ka faa'iideysan karaan waa haddii uu Biden soo laabto laakiin haddii uu Trump soo laabto waan ognahay Trump sida uu dadka soo galootiga ah ku yahay kuwii hadda waddanka gudihiisa joogay oo dadka darbiga ka soo booday aanu naqaana ayuu maalin kasta u hanjabaya oo u dhaaranaya wuxuu leeyahay waan wada celinaya waxa uu leeyahay kaararka shaqada ayaan ka qaadaya waxa uu leeyahay lottery waan joojinaya wuxuu leeyahay qaxootiga imaanaya waan yareynaya xitaa ardada waxbarashada ku imaanaysa waan yareynaya ayuu leeyahay marka wuu isbedeli karaa systemka haddii Trump uu yimaado oo barnaamijkan iyo barnaamijyo badan waa istaagi karaa laakiin haddii uu Biden soo laabto barnaamijkan sidiisa ayuu u sii soconayaa waxaana laga yaabaa inuu wejiyo kale oo badan uu yeesho maadaama hadda maamulkiisa uu bilaabay isla markaana uu hadda fiican yahay wallahi horta taas waa runta mar walba waxay ku xiran tahay xaaladda meeshay marayso iyo waxaan programka dhan waa iska calaf Soomahan adiga anaga tan qaban karno waxa waa dadaali karnaa leh inta dadaalina wixii Ilaahay calaf noo kasane waa ma gafayno marka programka intaana soo gabagabaynin waxaan rabaa haddii aan rabnaa ummadeena inay kula soo xiriirto ama bulshadeena sidee baan kula soo xiriiri karnaa xageebaad social media-ga iyo ma noo sheegi kartaa sida ugu fudud oo aan dhihi karno ama adiga xataa aan kugu taageeri karno oo aan dhihi karno maadaama aad noo haysid howl weyn bulshadeena ama dadkeena meel allaala meeshay joogaan horta YouTube-kayga inta badan markaad qaybta home-ka aad ku dhufato social media-ga dhan baa ku qoran waxaana jirta sidoo kale Facebook-gayga iyo Facebook page-ka aan ku leeyahay oo Cilmi Mohamed Waare ah iyo WhatsApp-kayga sidoo kale inay isku xiran yihiin oo dadku inta badan bay halkaas igala soo xiriiraan marka baraha bulshada kulay dhinaca TikTok-ga dadka Mareykanka jooga aad bay igala socdaan waa Cilmi Waare TikTok-kayga marka meelaha la booqdo subscribe-ta iyo follow-da ha lagu badiyo marka inta ayaan dhahay lahaa waadna ku mahadsantihiin sidaad ila soo xiriirteen registerna waan salaamayaa waxaa jirta gabar layla shaqaadan la yiraahdo oo wariye aan isla ahaan jirnay Reehon Afrika oo Rochester degan wali isma arkin waan wada xiriirnaa waan ismaqalnaa marka dad fara badan oo Soomaaliya ah Rochester degan waa magaalo weyn marna inaad isoo booqdo studio-haydu ku imaado haddii alla yiraahdo haddii fursadu noo soo maxdo waan samayn doonaa oo intaa iyo waxyaabo ka badan aan ka sheekaysana haddii alla yiraahdo insha Allah jazakallahu khair aad iyo aad mahadsantiin halkaas maanta aan waraysi xoog la yeelanay waa walaalkan Cilmi Waari soo sheegay la xiriira Facebook page-kiisa YouTube-kiisa WhatsApp-kiisa kulli aan taageerno anagoo asaasa media jazakallahu khair waa sidaa iyo maalin kale iyo nabadgelyo mahadsantiin jazakallahu